ismaqal iyo daabasho wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka Soomaalida iyo caalamka waa 7 bisha 11 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan saaki waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ciidamo kala taabacsan dani iyo doobadaareed oo xalay dagaal culus ku dhexmaray Garowe iyo xiisad saaki taagan khilaaf siyaasadeed oo ka taagan Puntland iyo baarlamaanka oo la fasaxay ciidamadii ka goostay Axmed Madoobe oo xoog ku qabsaday garoonka diyaaradaha Luuq dowladda federaalka iyo Itoobiya oo qafaal ka wada gobolka Gedo madaxweyne Farmaajo oo digniin ka soo saaray khilaafka Cumar Filish iyo wasiir Khadiija gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose oo qarax lagu dilay iyo khilaaf hoose oo ka dhex qarxay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Kheyre intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku bilawnay wararka ka imaanaya magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa sheegaya in israasaaseen xoogan ay xalay ka dhacday magaaladaasi iyadoona ay baqdin ku dhalisay bulshada deegaanka israasaaseyntan oo ka dhacday afaafka hore ee xarunta baarlamaanka Puntland ayaa waxay u dhaxaysay ilaalada baarlamaanka iyo ciidan kale oo sida la sheegay ka socday dhinaca madaxtooyada Puntland ciidamo isugu jira booliis BIS iyo daraawiisha Puntland ayaa la soo sheegayaa inay weerar ku qaadeen ilaalada xarunta baarlamaanka kuwaas oo kala taabacsan gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani warar kala duwan ayaa ka soo baxaya cidda iminka gacanta ku haysa xarunta baarlamaanka Puntland balse wararka ugu buuran ayaa sheegaya inay ku sugan yihiin askartii hore u joogtay tani ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli magaalada Garowe uu ka socdo oo la sheegay in mooshin looga keenayo gudoomiyaha baarlamaanka oo khilaaf uu kala dhaxeeyo madaxtooyada Puntland inkastoo isgaarsiinta magaalada Garowe ay xalay ciriiri ay ahayd ayaa haddana wararka ka imaanaya magaaladaasi waxay sheegayaan in israasaaseynta ay baqdin ku abuurtay dadka deegaanka reer Garowe oo xasilooni u bartay ayaa ku argagaxay rasaasta xooggan ee cawisnimadii xalay laga maqlay xarunta gobolka Nugaal mas'uuliyiinta maamulka Puntland iyo saraakiisha ciidamada ayaa wali ka hadlin israasaaseynta xalay ka dhacday magaaladaasi dhinaca kalena waxaa lagu soo waramayaa in israasaaseyntaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la ogyahay hal askari oo ka tirsan ciidamadii dagaalamay ayaa goobta ku geeriyooday waxaana uu dhaawac ka soo gaaray intii ay rasaaso socotay qof shacab ah sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in ganacsade caan ah oo caan ka ah deegaanada Puntland oo ku dhintay israasaaseyntaasi dhinaca kalena Cabdixakiin Maxamed Axmed doobadaareed gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa shalay oo Arbaca ahayd fasax 3 maalmood u diray xildhibaanada golaha wakiilada Puntland xilli ay xiisad siyaasadeed ka jirto magaalada Garowe golaha ayaa shalay magacaabay guddi ka kooban 30 xubnood oo soo ururin doona nuxurka warbixino kala duwan oo maalmihii la soo dhaafay laga dhageystay guddi hoosaadyada baarlamaanka xubnaha cusub ee la magacaabay ayaa isniinta toddobaadka soo socda la dhageysan doonaa xog ururin ay ka sameeyeen warbixinadii guddi hoosaadyada golaha wakiilada tallaabada uu qaaday gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa ku soo aadaysa xilli mooshin ay ka wadaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha Puntland iyo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa ka dhex taagan khilaaf sababay in xildhibaano labada dhinac kala taageersan ay bilaabeen mooshin ka dhanaa labada mas'uul ciidamadii ka tirsanaa daraawiisha Jubbaland ee ka gadooday magaalada Beled Xaawo ayaa shalay gelinkii dambe gaaray degmada Luuq ee gobolka Gedo iyadoo markii dambe ay xoog kula wareegeen garoonka diyaaradaha degmadaasi ciidanka oo tiradiisa lagu qiyaasay 150 askari sida ay noo xaqiijiyeen dadka ku nool degmada ayaa kolkii hore lagu soo dhaweeyay Luuq dib isortaag kooban oo ay kala kulmeen taliyaha saldhigga degmada waxaana ay magaalada gudaha u galeen iyagoo rasaas dabaaldega kor u ridaya sidoo kale ciidamadan ayaa markii ay ka baxayeen Beled Xaawo waxay hore u kaxeyseen gaadiid ay lahaayeen dad shacab oo ku nool magaaladaasi kuwaas oo ay ku tageen Luuq mana wadan wax gaari ciidan ah ciidanka ayaa la wareegay gacan ku haynta maamulka garoonka degmadaasi waxaana wali la ogeyn sababta ka dambeysay in ciidankaasi ay qabsadaan garoonka ay hore ugu sugnaayeen ciidan tiro yar oo ka tirsan Jubbaland ciidanka hore ugu sugnaa degmada Luuq oo ka amar qaata maamulka Jubbaland si gaar ahna u hoostagi jiray wasiirka u xiran dowladda Cabdirashiid Janan ayaa isku dayay inay garoonka ka hor istaagaan ciidanka gadoodsan oo ku qeylinayay Farmaajo Kheyre iyo erayo kale
taliyaha saldhigga degmada Luuq Siyaad Walbashaati ayaa la sheegay in markii ay ciidankani soo galeen degmadu isku dayay inuu isurtaa ku sameeyo balse waxa uu ku soo baxay ciidamada Itoobiya oo qayb ka mid ah magaaladaasi ku sugan kuwaas oo taliyaha ku amray in isaga iyo ciidamadiisa ay magaalada dhinac ka degaan xiisad u dhaxaysa ciidanka ka amar qaata Jubbaland ee horey ugu sugnaa Luuq iyo ciidamada ka goostay Beled Xaw ee galabta gaaray Luuq ayaa xalay ka taagnaa magaaladaasi. dhinaca kalena waxaa la filayaa in dhawaan la qabto ciyaarta finalka ahayd ee degmooyinka gobolka Banaadir taas oo 24 bisha hore uu baaqatay khilaaf soo kala dhexgalay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish iyo wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliya Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye warar lagu kalsoon yahay oo aan helnay ayaa xaqiijinaya in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu sabtidii toddobaadkan Villa Soomaaliya ku qaabilay Cumar Filish isla markaana ka dalbaday inuu tanaasulo si loo qabto ciyaartii dhawaan baaqatay. Cumar Filish waxa uu madaxweynaha u sheegay in ciyaaraha degmooyinka ay yihiin heer gobol wasaaradana ay shaqo ku leedahay heer qaran sidoo kale waxa uu soo bandhigay qaladaad ka dhacay garoonka oo halis ku ahaa ammaanka kumanaan qof waxaana laga codsaday inuu qaato dalabka madaxweynaha ee ahaa inuu tanaasul sameeyo waana soo qaatay ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha dowladda hoose ee gobolka Banaadir oo la hadlay warbaahinta. sidoo kale warar aan helnay ayaa sheegaya in Cumar Filish iyo wasiir Khadiija ay yeesheen kulan toos ah kadib markii dhinacyada lagula balamay inay soo fariistaan oo ay ka heshiyaan waxyaabaha u dhaxeeya. kulanka ayaa la sheegay in dhinacyada ku heshiyeen soo celinta wada shaqeyntii u dhaxeysay gobolka Banaadir iyo wasaaradda isla markaana ay dhawaan la qaban doonaan ciyaarta degmooyinka Dharkiinley iyo Waaberi oo ku balansanaa finalka tartanka degmooyinka. Cumar Filish kuma qanacsanaa heshiiska la gaaray waxa uuna ahaa mid cadaadis lagu saaray waxaase qaatay waxaan laga filan karaa inuusan heshiiskan sii jiri doonin ayuu yiri qof aan la hadalnay oo ka tirsan mas'uuliyiinta gobolka Banaadir. xiisada labada mas'uul ayaa ka dartay kadib markii wasiir Khadiija Maxamed Diiriye ay amar ku bixisay in la damiyo korontada garoonka Engineer Yariso Stadium habeenkii ay dhaceysay ciyaarta finalka degmooyinka. garoonka ayaa waxa gacanta ku haya shaqaale wasaaradda ay mushaar siiso. Khadiija ayaa la sheegay inay ka carooteen wasaaradda aan kaalin laga siirin qabashada tartankan. gudoomiyaasha ka horeeyay Filish ayaa wasaaradda kaalin ka sii jiray ciyaaraha hase yeeshee Filish ayaa taasi meesha ka saaray taasoo ka careysiisay wasiir Khadiija. markana gobolka Shabeellaha Hoose gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Cumar Maxamed Carabi ayaa lagu dilay qarax. allaha u naxariistay gudoomiye Cumar ayaa kooxo hubaysan waxay bamgacmeed ku weerartay guriga uu ka deganaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. dhaawac halis oo ka soo gaaray qaraxaasi ayaa la isku dayay in loola cararo isbitaalada magaalada Muqdisho balse mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Afgooye ayaa xaqiijiyay inuu geeriyooday. waxaa goobta isaga baxsaday kooxdii bamgacmeedka ku weerartay gurigiisa ee dhaawaca uu u dhintay u geystay waxaana haatan inta badan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada baaritaana ka wada ciidamada booliiska ee ka howlgala degmada Afgooye. ilaa ay hadda faahfaahin dheeraad ah lagama bixin dilka gudoomiyaha mana jirto koox sheegatay. waxaa loo badinaya in dilkan ka dambeysay kooxda Al-Shabaab oo dagaal kula jirta dowladda Soomaaliya iyo ciidamada Amisom. ugu dambeyntiina khilaaf hoose ayaa ka dhex qarxay madaxda ugu sareysa Soomaaliya taasi oo dhinacyada kala duwan lagu sababeeyay. warar laga helay labada xafiis ee madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Kheyre ayaa guuxaasi u ka jira. waxaa la isku haya ayaa ah xisbiga dowladda ay sameynayso cidda hoggaanka looga dhigi lahaa maadaama la sheegay in labada mas'uul ay madaxweyne u tartami doonaan doorashada 2021 ee dalka ka dhacaysa. siyaasiyiin aragti fog kale arrimaha socda waxay sheegeen in tani ay soo dedejin karto khilaafka haddii xal degdeg ah loo heli waayo in saaxiibada siyaasadda ay kala irdhoobaan. sidaasi ayaa laga yaabaa inuu isku casila ama xilka qaadis uu la kulmo Xasan Cali Kheyre isagoo ka feejigan ka hor istaag lagu sameeyay doorashada soo socota. qorshaha madaxweyne Farmaajo ayaa ah inuu doonayo madaxweynaha dalka inuu ku soo laabto qofkii leh baasaboorka ajnabi ahna uusan doorashada ka qayb qaadan doonin. ra'iisul wasaare Kheyre ayaa lagu qasbi doonaa inuu dhalashada wadanka Norway uu iska dhigo mana cadda sida ay xaaladda noqon doonto. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga intaa. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kalena qaybta gambaleedka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkani soo gelino. waana mahadsantihiin.